أما سداعدي يفكرو ما يدعين بدنا إن مالن إجماع لقى شقيقة كبربرة marka runtii aad baan ugu mahadnaqanaa iyadoo la sooman yahay oo maalin oo dhan la shaqeynayay 6 ilaa 6 todobada marka la soo galo waxa laga rawaxay uu shanta wasaaradda horumarinta maaliyadda oo qaranka u qaabilsan ururinta dakhliga cashuuraha iyo kharashka iyo bixintaba labadaba u qaabilsan waxa ay muddooyinka dambe ku jirtay dadaal dheeraad ah oo la xiriira soo ururinta dakhliga iyo sii hagaajinta adeega ay u hayso bulshada adeegyadaas waxaa ka mid ah ganacsatada in loo fududeeyo howlaha ay ka shaqeynayaan marka dadaalada fara badan uu muddadan bisha Ramadaan aan soo kordhinay waxaa ka mid ah oo dadweynahana jecel lahay inay ogaadaan in xataa jimcaha loo shaqeynayo gelin hore gelin dambe iyo habeenba waqti kastoo shaqo taalo in loo shaqeynayo xataa jimcaha ay shaqeynayaan kastamada waddanka oo dhami gaar ahaan kuwa dekada Berbera iyo kastamka madaarka Hargeysa oo awal aan jimcaha shaqeyn jirin inay shaqeynayaan si badeecadaha kala duwan imanaya diyaaraduhu sidaan ama maraakiibtu sido ay ugu fududeeyaan si ay markiiba ganacsatadu ugala baxaan dekada Berberaad waxay ku jirtaa xilliyadii ugu mashquulka badnaa ay shaqadu ka socotay iyadoo ay sababayso safaradii ciidda oo isa soo gaaray iyo safarro kale oo habsan ku ahaa badda carqaladihii gacanka ka dhacay darteed waxaa intaa dheer oo mashquulka kordhinaya xilligan isa soo gaaray bisha Ramadaan ilaa bisha Carafo oo xilliga xoolaha ugu badan dalka ka rarmaan sidaas oo ay tahay waxa sababaysa inaanu shaqeyno maalin jimcaha raaligelinta macaamilka darteed si customerka aanu u raaligelino ku xiran dekada iyo customerka labadaba alaabtoodina aan habsan ugu iman sida ugu fudud ee ugu macquulsanahay ugu tagto customerka Berbera wuxuu ku jiraa normalkiisa shaqadii caadiga ah shaqadii saakaanu bilownay 6 subaxnimo ilaa al'aana way socotaa waxaan rajaynaynaa ilaa labada inay nagu gaadho iyo wixii ka dambeeya sababtan taas waxa weeye anagu tixgelinayna macaamilkayaga iyo waqtigan imika lagu jiro oo ah waqtiga ciidda annagoo fulinayna amarkii ka soo baxay wasaaradda horumarinta maaliyadda ee soo gaarsiiyay agaasima waaxda kastamada ka soo ahaa in labada gelin iyo jimcahaba loo shaqeeyo dadka amarka waan fulin idinkoo ka wareysan doona sidii wax u dhaceen ganacsatadii aanu adeegaynay si aynu ugu fududeyno waxay nagu kaliftay inaanu shaqeyno labadii gelinba ilaa iyo intay naga dhamaanayaan shayga u dambeeya naga baxayo shayga u dambeeya intuu naga baxayo shaqadaasi way soconaysaa waxaan u mahadnaqayaa shaqaalaha ka howlgala kastamada dalka iyadoo ay fuliyeen in ay gelin hore iyo gelin dambe iyo habeenba u shaqeeyaan ganacsatada dalka mar labaadka annagoo fulinayna amarka agaasimaha guud iyo xeerarka dalka u yaala waxaanu qaadanay in aanu dadkeena u shaqeyno saacad kasta oo ay badeecad u taalo sida kastamka Berbera iyo airportka oo aan hore u shaqeyn jirin labadaas sidaad ka warqabtaana maanta kastamada dalka oo dhan habeen iyo maalin ayay shaqeyn doonaan maalmaha jimcahana way ku dareen oo waxaad aragteen iyadoo airportka iyo muxuu ahaayey iyo Berberaba laga shaqeynayo maalin jimcaha saac iyo maalmaha ciidda awgood waxaan bulshada reer Soomaaliland u sheegayaa kastamku inuu yahay saaxiibka ganacsiga saaxiibka ganacsiga uu yahay waxaan u sheegaynaa wixii hawl fududeyn iyo shaqo iyo dadaal iyo horu socod in ay ku amran yihiin shaqaalaha kasta oo goobta jooga inay fuliyaan
una adeegaan dadka si hufan oo xilkasnimo waayelnimo iyo maxay tahay wadaninimo leh customku wixii looga baahnaa ee adeega oo dhan wuu fulin doonaa insha allah laga bilaabo bishan April inuu dardargelino wada shaqaynta iyo korukaca iyo maxay tahay iyo fulinta amarada wasaaradda ka soo baxa iyo fududeynta shaqadaba in ay kor u kacdo halkii ay joogtay inaan kor uga sii qaadno marka doorata waxa la rogay marka shirkadda MSC oo 880 container oo ahaa alaabtii lagu iidi lahaa marka taasaa sababtay in la shaqeeyo maanta oo jimca ma dhicin badana in maalin jimca laga shaqeeyo kasoo berbera marka runtii aad baan ugu mahadnaqanaa wasiirka wasaaradda maaliyadda agaasimaha guud maamulaha kastamka Jamaal maamulka ku-xigeenka Axmed Cabdiraxmaan Xariir intii maamulka cusub yimid meesha waxa saaxiib noqday oo wada shaqeyn wanaagsan ka dhex dhacday ganacsatadii iyo maamulkii kastamka inta rabadaanta waxa isbedelay iyadoo la shaqeynayay iyadoo la sooman yahay oo maalin oo dhan la shaqeynayay 6 ilaa 6 toddobada marka la soo galo waxa laga rawaxay 5 halkan waa madaarkii Hargeysa gaar ahaan kastamkii Higaal International Airport ku yaalay waxaan ka midnahay ganacsatada inta badan ka cashuurata meesha alaabta runtii horta meesha shaqo aad u badan baa bishii rabada ka dhacday aynu imika dabayaaqadeeda ku jirno